Ukraine ayaa ku tala jirta in 3 bilood ilaa 6 bilood gudahood awood ay u yeelato in Ruushka ay ku weerarto gantaalo nooca ballistiga ah oo gudaha dalka lagu farsameeyay sida uu sheegay wasiirkii hore ee gaashaaniga Ukraine Mikhailo Fedorov. Fedorov ayaa waraysi uu siiyay telefishinka CBS ee Mareykanka laga leeyahay waxa uu ku sheegay in Ukraine ay ku qasban tahay inay sare u qaaddo awooddeeda tiknoolajiyadda si ay ula tartanto Ruushka inkastoo aanu cayimin xilliga rasmiga ah ee gantaalada la hawlgelin doono. shirkadda difaaca Ukraine ee Fairpoint ayaa bishii June bilowday tijaabo nooc gantaal ballistiga ah kaas oo Kiev ay u aragto inuu sare u qaadi karo awooddeeda ay kaga jawaabto weerarada Ukraine. Ukraine ayaa hadda waxay wajahaysaa gabaabsi weyn oo dhinaca gantaalada ah gaar ahaan kuwa cirka iyadoo la sheegayo in aysan awood u helin haatan Ukraine inay ka hortagto inta badan gantaalada ballistiga ah ee Ruushka sabab la xiriira yaraanta gantaalada difaaca. madaxweynaha Ukraine Volodymyr Zelensky ayaa Mareykanka iyo reer Yurub waxa uu ka dalbaday gantaalo dheeraad ah oo wax ka qabta weerarada cirka isagoo sheegay in Ukraine ay haysato qayb aad uga yar inta ay u baahan tahay gantaaladaasi. dhinaca kale Zelensky ayaa waxa uu sheegay in Ruushku aysan uga talaasini doonin dhul ka mid ah gobolka Donbas isagoo ka digay in tanaasul dhileed oo Ruushka loo sameeyo uusan dabaanad qaadi karin in Moscow mustaqbalka aysan dib u bilaabi doonin dagaalka.